بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أصحاب هذه الإسلامية بعد السلام وعشر كيني كوبات نقول إن شورت كورس كان لرهضه إن Principle of Accounting 1 كاسو وقت الصنفة كان لرهضه Accounting and Finance وأنا جوا خالد كحنوب كم قاعد كحنوب جرا وحين ما أنت برتن كصوبان لقيتونا casharadeenii inoogu horreeyay sidaynu ku balansanayn maanta waxaada insha allah casharka koowaad aan qaadanayno waxaa la yidhaahdaa Principle of Accounting 1 Chapter 1 waxaan kaga hadli doonaa sida halkan idinka muuqata Overview of Accounting and Finance waxa uu ku tusinayaa sharaxaad badan ka siinaya Accounting and Finance iyo wuxuu yahay waxaan dhiganaynaa Definition of Accounting and Finance xal ugu qeexaa ma loo yaqaana maadada la yiraahdo Accounting and Finance sidoo kale waxaan dhiganaynaa Types of Business noocyada uu businessku ka kooban yahay sidoo kale insha Allah waxaan arki doonaa casharada ku saabsan The Basic Accounting Equation waa qaacidada ama formulada miisaanta Accounting and Finance sidoo kale waxaan arki doonaa Chart of Accounting waxa la yiraahdo iyagana arki doonaa oo shan ah sidoo kale waxaan arkaynaa what increase the asset of a business and what decrease maxaa hantida company ama shakhsi maxaa hoos u dhiga oo yareeya ama maxaa kor u qaada sidoo kale waxaan arkaynaa financial statements waxa la yiraahdo and users financial statements waa afar waraaqood oo company-gu soo saaro ama bil loo soo saaro ama weekly loo soo saaro ama yearly annual waxa soo dhan uu soo saari karo kolbakay company-ga policy-giisa ay ka dhigtaan nooca company-gaasi sida uu yiraahdo oo doono inuu soo saaro waraqaha ay loo soo saaraa financial statements baa la yiraahdaa waa afar waraaqood sidoo kale cidii isticmaalaysa marka la soo saaro iyo waxa looga danleeyay in arki doono insha Allah oo users ka in arki doono insha Allah haddii aynu hore ugu sii socono waxaan arki doonaa what is accounting oo yahay accounting-ku sida badan waxa lagu qeexaa definition-ka hoose laakiin sidoo kale waxa la yiraahdaa is the language of business haddii aad nooca tiraahdo waa qaacidada is language of business haddii aad ku qeexdo waa enough sidoo kale waxa ka fiican qaacidadan oo aad u dheer oo aad noo faahfaahsan waxa la yiraahdaa waa is a process of recording waa qaabka wax loo diiwaangelinayo classifying loo kala saarayo summarizing loo soo koobiyo and reporting loona gudbinayo the financial information-ka xogta maaliyadeed to assist a people si ay dadka u caawiso inay make a decision kuwa decision-ka gaaraya ama si ay decision ugu gaaraan go'aan markaad waxaagii ogtahay halka uu marayo heerkiisa awoodiisa ayaad gaari kartaa go'aanka ugu fiican the right decision baad ay gaari kartaa kaasi waa qeexitaanka ugu fiican ee Accounting and Finance-ka sidoo kale waxaan arkaynaa types of business muxuu ka kooban yahay business-ku noocyadee uu kala baxaa saddexda nooc uu kala baxaa waxa la yiraahdaa manufacturing business waa business ama waa ganacsi laga ganacsanayo in warshad la geliyo wax cusub laga soo saaro lana iibiyo sidoo kale merchandising business baa la yiraahdaa ka labaad waa business-ka ama waa ganacsiga wixii la soo saaray iyadoo aan waxba laga bedelin la iibinayo sida alaabaha badanka ay u badan yihiin wadankeena Soomaaliya waa sida alaab la soo saaray dib loogu iibinayo iyadoo aan waxba laga bedelin sidoo kale waxa jira service business oo ganacsiyada imika soo baxaya oo soo badanaya waa adeeg inuu qofkii qabto sida telecommunication-ka oo kale transportation cars-ka oo kale gawaadhida baxbaxda meelaha u baxda dadka waxay ka kareynayaan adeeg alaab kama iibinayaan kuwa telecommunication dadka adeeg ay ka iibinayaan laakiin alaab kama iibinayaan waa service business baa la yiraahdaa haddii aynu casharkeena hore ugu sii socono waxaynu arkaynaa the basic accounting equation waa qaacidada accounting-ka ee basic ah qaacidada accounting-ka waxaynu ku arkaynaa asset is equal liability plus capital or owner's equity waxa weeyaan waa hantidu waxay la mid tahay deynta oo loo geeyo raasamaalka waana qaacidada accounting system kasta
uu ku base garaysan yahay. qaacidadaasi waa isla egta miisaamaysa hantida company-ga. assetku waxay ama hantida company-gaasi waxay la mid tahay ama qof leeyahay waxay la mid tahay deynta lagu leeyahay oo loo geeyay capitalka uu haysto ama raasmaalka uu haysto. bale waxa ku leeyahay every accounting system of financial is based on this above formula. hab xisaabeed kasta waxa uu ku base garaysan yahay ama uu ku taagan yahay waa qaacidada sare. إن شاء الله ما أنت عشر كلمة أنت سكسوك بقبيلنا وأنا جوا خالد عبد كاحنوك وحنا نقول سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عصي وفهم جود وأكاونتك يوحي هي قاعدة سكوبات ويصير ضحك الله. إن شاء الله 10 دقائق بس سعنتنا calculation إسنوينو جريدنا مركز إن شاء الله تقول هذا وحلا هاي سيفي عن البسوط يا كروبو وسيفي عن لقاها لغفر وكورس معا وكورس إن بدن نرش لا تعلق أو واحد بدن أتكيف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.